السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baad ugu mahadsantihiin walaalaha halkan igu yeedhay inaan halkan nashiido hooyada ku saabsan ka jeediyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaana igu dhaliyay inaan dib boodhka uga jafo nashiidadaasoo waqti badan dhowr iyo 10 sano ka hor aan sameeyey. waxa igu qasbay ayaan dhaweyd oo aan idaacadaha ka arkayay maalinta hooyada oo markaa meel walba laga waday. markaa waxaan idhi naxnu axaqu minhum, annaga uga xaq leh inaan hooyada warkeeda iyo ammaanteeda soo bandhigno, annaga uga xaq leh baan idhi. marka waxaan xasuustay hees ama nashiido islaamiya oo markaan jaamacadda ku jiray aan sameeyey, iyadoo ay igu dhalisay nashiidadaasna habeenada ka mid ah anigoo summer course qaatay fasaxa. had iyo jeer ardaydu way baxaan jaamacadaha, maaddo aad igu adkayd baan fasax qaatay anigoo markaa meeshii sakankii ardaydu deganayd oo laga wada tegay keliday jooga oo murugaysan ayay hooyaday la soo hadashay. markaa waan ooyey. kadib waxay igu dhalatay inaan nashiidkan sameeyo. markaa ilaa 2 xaashadood baan wax u dhigmaan markaas sameeyey, maan qorin, markii dambaan qoray. kadibna mar hadday nashiidadu furanto intii doonaa laga dhigi karaa. dumar iniinta aad heshood midhaha mar hesho gabayga ama nashiidooyinkaba intaa doontaad ka dhigi kartaa. markaasay igu dhalatay midhihii ugu horeeyey, waxayna ahayd sidan. aadna aad buu ugu mahadsan yahay markaan arkay dhalinyarta jaalidood dadaalaysa. aniga laftigay waxaan jeclaystay inaan bal wuxuun kaga qayb galo. jazaakum allah khayr. waan iska bilaabi doonaa. ma ku luqaya mise caadan akhriya? hooyada naf loo dhigo dhaayaheenu may arag, adoon dhalan jacayl bay dharka ku habaysaa, cuntaday dhibishaa adigay ku dhowrtaa, wixii dhuux garaaciyo dhaxa deg soo maray, markaad dhalato wiil yahow dhaqsay uga bogsootaa. dhaayaheedu adigay habeenkii ku dhowraan, afkaagoo dhareerlay dhunkataa hadiyo jeer, dhunkataa hadiyo jeer. dhulka kuma quudhe dhabarkay ku saartaa, dhaxantiyo dabaylaha dhinacay ku gelisaa, cunto dheelitiran iyo dheef bay ku siisaa. dhaadhiiga madayside dhabteedaad u hoyataa. dhayal maahin hooyadu xanuunkii ku dhibayana, dhakhtarkoon ogaanbay dhawaqa ka garataa, dhawaqay ka garataa. dhabankaaga ruuxii dhirbaaxada u quudhana way ka dhiidhidaayo, dhagar bay ka yaabtaa. ceebtiyoo dhaleecada dhegaheedu necebaa. dhalinyaro haddaad tahay ama oday dhammaado, dhashiisii gaboobeen dhallaan bay ku moodaa, dheegyaray tidhaahdaa. dhalinyaro haddaad tahay ama oday dhammaado, dhashiisii gaboobeen dhallaan bay ku moodaa, dheegyaray tidhaahdaa. dhaqaalaha u gaarka aday ku dhitaysaa, hoos kuugu dhiibtaa. haddii aad dhammaystahay ama dhinac lagaa jiro, kalsoonida dhankeeda ah boqor dhalada baa tahay. dhayal maahin hooyadu waa udub dhexaadiyo, dhigta guriga hayse dhaqankiyo asluubtana dhaxalsiisa ubadkeen, dhammaanteen ku faane dhulkana looga magac dhigay, dhulkana looga magac dhigay. xaqeed lama dhammayn karo haddaad saarto dhabarkood,
dhexwareegto xaramkiyo dhagax tuurka carafaad dharaar qayd ku daacsamay dhaymadeedii maad gudin waxa taa dhowayn kara oo dheeman kala weyn dhigiyo lafahawkaba dhididkaaga madaxiyo dhabankaagoy ursatoy dheehaaga xodatee ruuxii ka dheerow haatani dhaqaaqo dibudhigo wixii kale sidii diinta lagu dhigay aabbihiina dhalayeen dhididkiisa mudanay saddex samaha dheertee dhammaantood u samafalaa sidii diinta lagu dhigay dhexda qoobabkeeda jannadii la dhigaye dhego nugul ku doorsadaa wayna soo dhaqeenoo dhibayna laamuteene rabbow dhinaca nabigiyo jannadii dhexgeeyo dhaxalsii firdowsiyo abaalkaagii dheeraa ducadaasaan ku khatmayaa